halkani ma aha xeebta Mombasa, Rio de Janeiro iyo Alexandria. waa xeebta Lido ee degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir oo ah xeebaha loogu dalxiis tago magaalada Muqdisho. waxaa gaara dhalinyaro hable iyo wiilal oo ka nasanaya howlaha waxbarashada ee toddobaadkii. dhacdooyinka la yaabka ee halkaasi kula kulannay ayaa ka mid ah in xeeb labaad oo ahayd xeeb marka la dabaaltegayo iyo doon la raacayo khatarteeda leh ay ka duwaneed maanta. kooxaan ka mid ahay ayaa durbo bilaabay in xeeb koowaad ay ka raacaan doon si aynu ogaanno waxa halkaasi ka jira. waa goob qalalan oo ay dadku dul soconayaan. khayraad fara badan oo laga faa'iidaysto ayaa ku jira biyaha iyo xeebta Lido oo ay dad badan ay ka muruqmaalaan. waxaan gacanta ku dhigay mid ka mid a waxyaabaha cajiibka ah oo aan ka helay xeeb labaad. halkan waxay ka mid tahay goobaha cajiibka ah. waa xeeb labaad, waxaana marar qaarkood la tilmaamaa markay badfuranka ay tahay in halkan uu jawigeeda uu degnaado oo dadku ay ku dul socon karaan biyaha dushooda. waa waxyaabaha cajiibka oo dadku ay sheegaan, gaar ahaan dadka badgalka ama naaquudayaasha oo ay sheegaan xilliga badfuranka in sidan ay dhacdo. waxyaabaha kale oo aynu ka dhex aragno waxaa ka mid a goobtana waynu soo gaarnay oo xagga hore ee badda aynu kaga soo galnay doon ayaa waxaa ka mid ah xidigan oo la yidhaha xidiga malayga badda ama starfish oo ah waxyaabaha cajiibka ah ee gudaha badda, gaar ahaan xeeb labaadkan qalalan ama biyaheeda oo yaraadeen aynu ku dul soconayno aynu kala kulmayno dhacdooyin noocan ah. dad badan ayaa bilaabay in ay doonyo u soo raacaan xeeb labaad oo la sheego xilliga badfuranka in ay noqoto meel biyaheedu ay yaraadaan dadkuna ay ku dul socon karaan. waxa ay bilaabayaan dhallinyaradu inay sawirro iyo sheekooyin ay halkaasi ku sheekaystaan dhallinyaradu. intii aynu goobtaasi xeeb labaad dul joognay waxaa inoo suuro gashay in aynu kula kulanno taliyaha degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ee dhinaca booliiska oo aynu wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan in abid inta uu xilka haye uu la kulmay xeeb labaad oo sidan oo kale u qalalnaata dadkuna ay dul socdaan. weli ma dhicin. alxamdulilah ilaaha ku shaqola shaqadan annaga waxa waaye waa naga weyntaa, laakiin waqtiyada gaarka ah sheegto waaye waa nimaanaa saanoo kale ma ku dhacdo. barnaamijyaan ku qabsanaa, dabaala lagu bartaa. ciidanka badda booliiska taagan, doominkii booliiska taagan, annagina berigaan nahay. iyadoo dadku ay aad ula yaabeen dhacdadan aynu la wada kulannay ayaa haddana mid ka mid a dadka naaquudayaasha ee wadadoonyaha lagu kalluumaysto uu la hadlay telefishinka Dalsan xilli uu isaguna ku sugnaa xeeb labaad. waxuuna sharaxayaa sida arrintan mararka qaarkood iyo xilliyada ay ku soo beeganto in ay dhacdo. wallahi aniga intaan wax waday iyo intaan wax barahay intaan wax waday 10 sano wax waday doon oo naaquuda aan ka ahay. adiga intaan barahayna 2 sano wax saasay. dhacdadan in xeebta labaad ay noqoto dhul marar qaarkood lagu dul socon karo waqti noocee ayay ku soo beegantay? wallahi waxa waaye marba xilli waaye, marna 2 xilli waaye. habsa cadde iyo habsa madoobe loo yaqaan sida kale mar caari dheer waaye. markaas waxa waaye habsaas markuu yimaado waa buuxiyay baddu waxay tumee hoteelada dirbiyada tumee. markay kale caariyeedana badda xeeb inta ka keenay xeeb labaad. والله وليبا جانيس بدن oo ilaa saacado badan joogi karo, waqti badan lagu dalxiisi karo aa laga helaa. yani waxaad ka wadaa badxiranka iyo badfuranka? badfuranka xilliga badfuranka aa la helaa. xilliga xagaayaha oo kale waxa waaye badana dhawaaqsanta xataa meesha lama imaamo karo. wartaro meel ada Soomaali intaan bad tagay badan Lido oo saan u caariyay bad lamida waaga ma arag oo inta qallasho lagu kor socahay qabna ibiika waxa jirta xab cadalo malab leeyahay oo ayaduna sidoo kale u tagto oo doomanka aan ku hoolanno biyaa ma hay doonto biyaha ka tagayna ayadoo dhulka fadhida oo ma hayna biyo ka dhamaadeen waa hoolaheena kadib biyaa ma hay way ma nuxsay barosimadeedii waa iska qalanay sideedu taagantaa sideeda loo kiciyaa haddana.
degmada cabdilcasiis oo ay ku xeeran tahay xeeb ballaaran oo loo dalxiis tago ayaa waxaa ka howlgala ciidamo booliis ah kuwaasi oo baaritaan gaadiidka iyo dadweynaha ku sameeya si markaasi nabadgelyada xeebta ay aad ugu dadaalaan. dhalinyaro ayaa iyaguna jira in ay ku soo bandhigaan ciyaar dhaqameed iyo ciyaaro gaar u ah si markaa dadka u soo dalxiis tegaya xeebta liido ay u daawadaan fantasiyaha iyo baashaalka dhalinyarada qaarkood halkaa ay ku samaynayaan. xasan laki, Dalsan TV, Muqdisho.